jacaylku waa dareen ku abuuran qofka bini aadamka ah sidoo kale kalgacaylkuna waa mid kaas la mid ah laakiin waxaa u jira farqi u dhexeeya labadooda jacaylka rasmiga ahi kow waxa uu ka bilaabmaa daymada ama dareenka qofka in qof aragto ama aad qof dareento isagoo kaa maqan daymada ama dareenka qofka kaasoo ogolaada inuu diyaar u noqdo inuu noloshiisa qofka la soo galo marka aad qof jeclaato waxaad diyaar u noqonaysaa ruuxiisa ama dabeecadihiisa ama hadalkiisa ama socodkiisa ama qaabkiisa waxyaabo lamida noocaas ama aqoontiisa ama diintiisa kulli waxa la yiraahdo kahelitaan baa ku xiga marka daymada markaad waxa aragto the second xiga oo kahelitaan taasoo macnaheedu yahay inaad qofka ka heshay oo uu ku qanciyay ama dabeecadiisa ha noqoto ama quruxdiisa ha noqoto ama diintiisa iyo aqoontiisa ha noqoto tan saddexaad waa xiise waxaad xiisaysay sababta qofkii meel wada joogtaan moogti markaad ka hesho waxaad xiisaynaysaa maalin kasta qofkii inaad aragto inaad dabeecadihiisii daawato inaad quruxdiisii daawato inaad aqoontiisii ka faa'iidaysato waxyaabahaasoo dhan baad xiisaynaysaa okay tan afraad baa jacaylku yahay markaasaad wax jeclaanaysaa midna mid uma gudbi karto ilaa taa hore guulaysato daymadii waa guulaysatay waa arkay maalin kasta waa arkay waa ka helay gabadhii waa ka helay markaan ka helo qodobkii saddexaad waan xiiseeyey inaan qofkaa nolol la qaybsado kelitaankii markuu ii dhawoobay maxaan xiiseeyey inaan nolol la qaybsado markaan nolol la qaybsado ay ii suurto gashay markaasaan jeclaaday okay tan afraad waa jacayl in qofkaasi aad jeclaanayso mar kasta kula hadlo waqti kuwa qaato dhib iyo dheefa aad wadaagtaan marnaba aanu kaa fogaan jacaylka dhabta ay afartaas marxaladood ayuu maraa laakiin jacaylka Soomaalidu wuxuu u eg yahay xiisaha okay qodobka labaad marka kaas qodobkii koowaad ee jacaylka ka sheekeynayna waa maxay kalgacaylku marka kalgacaylku waa meesha ugu dambaysa ee jacaylku waa marka uu qofku gaaro heer uu ka maarmi waayo hal daqiiqo waa marka dhexdiina ubad ka beeramo isla markaana aad ogaatid in adiga iyo qofkaas aad jeceshahay ay wax idin dhex yaalaan astaan muhiim u ah jacaylkiina iyo xusuus qaaliya isla markaana ilaahay idinka beeray ubad kalgacaylku wuxuu yimaadaa marka aad ogaato in waxaan qof idin dhex yaalo adiga gabadha aad isguursateen aad isjeceshihiin ubad baa ilaahay ka beeray ubadkaasi xaq wuxuu kugu leeyahay inaad adiguna dhankaaga ka koriso aabahana dhankiisa ka koriyo waa marka aad u ilmayso oo aad u murugooto jacaylkaaga waa marka aad ka fikirto isla markaana waqti kasta isaga ama iyada aad ku mashquulsan tahay kalgacaylku waa dareenka ugu culus ee uu jacaylku leeyahay waa farxadda ugu weyn ee noloshu leedahay waa fursadda ugu qaalisan ee lamaanuhu ku ogaan karaan heerkulka uu jacaylkoodu gaadhsiisan yahay